Qaramada Midoobey ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dagaalkii dhawaan Somaliland iyo Puntland ku dhaxmaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Danjiraha Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Ayaa arrinkan ka hadlay danjira Michael Keating waxa uu ugu horeyntii ugu baaqay labada dhinac ee Somaliland iyo Puntland in ay joojiyaan wax kasta oo colaad keeni kara isla markaana aanay tallaabo military oo la qaada ahayn wax habboon balse waxa uu carabka ku dhuftay inay habboon tahay inay labada dhinac ee Somaliland iyo Puntland ay arrinkan ka wada xaajoodaan. Our position is to try and reduce tensions, to increase dialogue very quickly between both sides, so that if there are misunderstandings, these are clarified. If there are genuine differences, then they have to be subject to immediate discussion. But that resorting to military solutions and to violence is not the way to resolve these problems. Dhanka kalena danjiraha ayaa ka hadlay arrinta maamulka hawada ee dalka Soomaaliya ay doonayso in lagu wareejiyo waxa uuna cadeeyay in arrintani ay tahay inay ka wada hadlaan dalalka Somaliland, Soomaaliya iyo hay'adda ee kaaway Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha duulimaadyada isla markaana ay wax isla meel dhigaan. Airspace management is in the interests of both of everybody, of the world. In fact, airspace cannot be an area of dispute because then it will shut down. So I think there needs to be an immediate discussion between Somalia, Somaliland, ICAO, to clarify the basis upon which airspace management will be undertaken over the skies here. Again, to make sure that any misunderstandings are resolved. I know the Foreign Minister is going to be addressing this in the coming days. In fact, maybe you're in a better position to answer that question than I am. But ultimately, there has to be respect for the agreements between Hargeisa and Mogadishu as to the basis upon which this should be done. And if there are any misunderstandings about that, they need to be clarified, because it is in the common interest of everybody that this is resolved. There is no win-lose situation here. It's either win-win or lose-lose. So I hope this is resolved as quickly as possible.